Hano Academy iyo Hana Technical University ayaa si wada jira u xusay maalinta caalamiga ah ee xirfadaha dhalinyarada iyagoo soo bandhigay fursadaha waxbarasho iyo tababarada xirfadeed ee ay u diyaariyeen dhalinyarada Soomaaliyeed. Munaasabadan ayaa muujisay sida ay uga go'an tahay horumarinta aqoonta, kobcinta xirfadaha wax ku oolka ah iyo diyaarinta jiil Soomaaliyeed oo awood u leh inuu ku guuleysto waxbarashada, shaqada, hal-abuurka iyo hogaaminta mustaqbalka. Ardaydii booqashada ku timid xarumaha Hano Academy iyo Hano Technical University waxa ay ka qayb galeen bandhigyo wax ku ool ah, practical demonstrations oo ay soo bandhigeen kulliyadaha jaamacadda iyo waaxyaha tababarada xirfadeed ee Hano Academy, waxayna fursad u heleen inay si dhow ula falgalaan tababarada isla markaana u arkaan sida aqoonta iyo xirfaduhu isugu biiraan si loogu diyaariyo dhalinyarada suuqa shaqada. Ardayda waxa ay booqdeen shaybaarada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda oo ay ka mid yihiin Technology, Mechatronics iyo Medical and Health Science, halkaas oo ay goobjoog ugu noqdeen tababarada iyo farsamooyinka casriga ah oo ay ardaydu ku bartaan aqoon iyo xirfad isku dhafan. Dhanka kale, Hano Academy waxa ay soo bandhigtay tababaro xirfadeed oo ay ka mid yihiin Graphic Design and Multimedia, Video Editing and Photography, Tailoring, Make-up and Beauty, Solar System Installation, Cooking and Culinary Arts, Computer Maintenance and Troubleshooting, English Language iyo Electrical Installations. Tababaradan waxaa loogu talagalay in dhalinyaradu lagu siiyo xirfado wax ku ool ah oo si toos ah ula jaanqaadaya baahida suuqa shaqada, isla markaana u sahla inay helaan shaqo, iskaa u shaqaystaan ama abuuraan ganacsiyo cusub. Intii ay munaasabada socotay, Chancellor-ka Hano Technical University ahna Operational Managing Director-ka Hano Academy, Dr. Sacdiya Siyaad ayaa jeedisay khudbad dhiirigelin iyo wacyigelin ah. Waxa ayna ku boorisay ardayda inay ka faa'iideystaan fursadaha waxbarasho iyo tababarada xirfadeed, iyadoo xustay inay isku darka aqoonta iyo xirfaduhu yahay furaha guusha shakhsiyadeed iyo tan xirfadeedba. marka ugu horeysa waa idin salaamay. marka xigto runtii maanta waxaan u dabaaldegaynaa maalinta dhalinyarada adduunka ee xirfadaha waay. markii ugu horeysa Soomaaliya anaga bilownay inaan barnaamijkaas oo kale aan qabanno. runtii waxaan u qabanaynana waxa waay inaan idin dhiirigelino. adduunka oo dhan laga dabaaldegaa. ma ahan wax ma arkino wadan u go'an ah. dhalinyarada waa mustaqbalka maanta iyo bari. adduunkana waxa lagu hormaray wax kale ma ahan, waxa waaye xirfad la'aan shaqo la'aan waay. runtii annaga kamacad ahaan Hano Academy xirfadihiyaan xooga saarnay, jaamacadan ku darnay oo ilaa iyo degreegii oo ma arkino bachelorki aad rabtana waad qaadan mase masterki, xirfadna waa ku qorbaranaysaa. xirfadda muhiimadeeda waa maxay? waa dhig joojiye isla markii aad wax qasuusan kartaa. adiga intaad company furatid aad ku shaqaysan kartaa. adiga shaqo abuur noqon karo. laakiin maanta hadduu qofka xafiisan ka shaqeynaa shaqo abuur ma ku noqon karaa? maya. xafiis dowlo qof kasta u cararaaya. laakiin xafiis dowladda laftigiis wuxuu u baahan yahay xirfad. marka maanta oo muhiim u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed adduunweynaha joogaan meel kasta ay joogaanba oo loo dabaaldegayo maalinta xirfadaha dhalinyarada ee adduunka. farxad weyn ay tahay anigoo matalayo Hano Academy iyo Hano Technical University in aan ardadan qiimaha badan ee gabdho u badan yihiin waliba aan hor joogo oo runtii dhiirigelin u suubinayo wiilasha joogaan xirfado badan halkan ka baratiin. waxaan rabnaa runtii fursadan ay haysatiin inaad ka faa'iideysatiin, adinka ku shaqaysatiin, dhalinyaro kale ugu sii faa'iideysiin. waxa haysatiin Hano Connect oo Hano Employment Hub xafiiska shaqo geynta ah oo aad runtii ku helaysiin fursad qaali ah. waxay idin yaalo kaleeto Hano Business Development Hub oo aad ku helaysiin hal abuurka ganacsiga iyo markano tijaaro microfinance oo maalgelinti markano dadkii oo selectionka ku soo baxaan oo ku guuleystaan oo kale laga caawinayo. barnaamij kaleeto oo cusub oo runtii mana cusbo muddo badan aan wadina la dhahayo maal oo entrepreneurship reality TV show ah
oo qofkii xirfadda leh oo kale tad idea ganacsi markuu haysto kale tad bana loo hor imaanaya qofkaas ay idea ma arkino oo sheeganaya dadkii markii idea loo arko inay tahay idea mucjiso ah oo fiican wadanka iyo dadkaba qiimo u leh investment yaa la siina salaamo Somali Bank iyo anaga ma arkino shaqada isla wado telefishinada waaweyn laga soo deynaa TV badan aan soo gelin doonaa xindaabka baraha bulshada kala socon kartiin intaas wax kale uma ahan waxaan ugu talagalnayaa waxay tahay in adinka aan naqanina shaqo raadi oo kaliya ee aan naqatin shaqo abuuray because maanta waxa la dhahaa Soomaaliya shaqo la'aan ka jirto laakiin ma iga rumaysanaysin shaqo la'aan kaliya kama jirtee shaqo xumana way ka jirtaa because dadki xirfado ku filan ma haystaan xirfado ku filan dadki ma haystaan munaasabadda waxay si cad u muujisay muhiimadda ay leedahay in la isku daro waxbarashada jaamacadeed iyo tababarada gacanta lagu barto taasina waa himilada Hana Technical University iyo Hana Academy in la soo saaro arday leh aqoon jaamacadeed iyo xirfad uu ku shaqeyn karo inta uu waxbarashada ku jiro si uu noqdo shaqaale xirfad leh ama shaqo abuura fursado cusub Hana Academy iyo Hana Technical University waxay aaminsan yihiin in maalgashiga lagu sameeyo xirfadaha dhalinyaradu uu yahay maalgashi lagu sameeyo mustaqbalka Soomaaliya iyadoo loo marayo waxbarasho tayo leh tababaro wax ku ool ah hagitaan xirfadeed taageeridda ganacsiga iyo iskaashiga lala yeesho warshadaha iyo loo shaqeeyayaasha waxaana dhisaynaa jil cusub oo ah xirfadlayaal hal abuurayaal iyo shaqo abuurayaal maalintan caalamiga ah ee xirfadaha dhalinyaradu waxay u dabaaldegayaan kartida hibada iyo hamiga dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana dib u xaqiijinaynaa ballanqaadkeena ah inaan siino fursado ay ku bartaan ku koraan ku hal abuuraan kuna hogaamiyaan mustaqbalka dalkooda aqoonta iyo xirfadaha oo la isku geeyo waxay awood u siinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay shaqeystaan ama abuuraan shaqooyin cusub Jolo Shaakir warbaahinta dalsan Muqdisho.